madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka degay madaarka caasimadda dalka Djibouti waxaana halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda biyaha, beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Djibouti Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu helinayay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dalka Djibouti iyo danjiraha Soomaaliland u fadhiyay dalka Djibouti. madaxweynaha Soomaaliland ayaa qadar nasasho ah oo uu ku qaatay qolka gaarka ah ee nasashada madaarka Djibouti ayaa waxa loo galbiyay madaxweynaha dhinacaas iyo qasriga madaxtooyada Djibouti oo uu kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegtay inay labada madaxweyne yeesheen kulan muhiim ah oo ay kaga wada hadleen danaha labada dal, adkeynta xidhiidhka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dhinac iyo isku socodka arrimaha bulshada. madaxtooyada Soomaaliland ayaa sidoo kale waxay sheegtay in kulankaasi lagu sii qaaday sidii horeba labada dhinac ay iskaga kaashan jireen ka warhaynta iyo isku socodka arrimaha nabadgelyada mandaqada. kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliland iyo Djibouti ayaa iyana waxaa goobjoog ka ah wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliland iyo Djibouti mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon iyo mudane Maxamuud Cali Yuusuf, mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali, wasiirka biyaha, beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Djibouti iyo danjirayaasha Soomaaliland iyo Djibouti u kala fadhiya Hargeysa iyo Djibouti Cabdifataax Siciid Axmed iyo Xuseen Cumar Kawaaliye. madaxtooyada Soomaaliland ayaa safarka madaxweynaha Soomaaliland waxa ay ku sheegtay inuu yahay safar shaqo oo qaadan doona maalmo. Axmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasab. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.